It's a little sting when I'm talking. Somehow my doubts seem locked in. So true that all too often we forget ourselves. markii dambe wuxuu yiraahday waxa aan ku gaaray waxaan markii inaan banaanka keeno intaas sano aan kaliya u ahaa maadaama ahlartan soo weynaaday oo soo caqliyeystay oo xoogaa isbedeleen dugsiga qaybtiisa sare ugu dambeysay amriga marka wuxuu yiraahday saaxiibadii waxaan la wadaagay inaan rabo gabadhan inaan la hadlo marka waxay u dhaheen okay dhib ma lahan buu yiraahday yar saaxiib ahayn iyo arday dhaweyd buu yiraahday laba qof oo idwa saaxiib ahayn marka waxay u dhaheen okay la hadal anaga ku la hadlay marka wuxuu yiraahday may waan ku yiraahday anaa la hadlay qof la hadlay aniga la hadlay waan ku yiraahday saaxiibaday marka sidoo kale wuxuu yiraahday markii aan damco inaan la hadlo waxa arkaa saabin oo soo fiirinaysa wayad inay dhahay ways marka wuxuu yiraahday wixii aniga iga tarbateen ma kaliya ma keeni karin inaan la hadlo way u adkaatay wuxuu yiraahday maalin kasta iskuulka waxaan ku imaadaa inaan la hadlo haddana ima suurto galayso waa iska laabtaan waqtigii haddana way igu socdaa kadib wuxuu yiraahday adiga waxaa bilaabmatay inaan isa salaano tartiib seetam fiican tahay maasha allah maalinta waxaan ku yiraahday see ka war xaalada alxamdulillah ayaa la soo wareegay maalinta kale hiimaan seetam fiican tahay maasha allah iskuulaadkii waxaas laga wada hadlo bas wuxuu yiraahday sideen kala saaxiibaa u noqonay dad walaalaha noqonay dad kale asxaab baa wada noqonay asxaabta saaxiibaday ahaa way la simatay gabar waxay noqotay saaxiibaday ah caadi gabdhaha kale sidaan ula hadlo kale heblahay see tahay heblahay qalin si ama waxaas iyo normal nolosha caadiga normalka class ka jirto waan dhex martay uu yiraahdo laakiin aniga tan ii khaaska ahayd oo ahayd fiirinteedii sidii ayadoo ii taqaan hadda marka qaar waxaan rabaa inaan fiiriyo laakiin waxa yiraahday waxaan arkayay fasalkii koowaad qaybta ugu dambeysay iskuulka waxaan dareemay uu yiraahday in ayad fiirinayso so chance ma heli karin inaan fiiriyo marka Salmaan wuxuu sameeyay asoo aan wali hadlin qaybta koowaad iskuulku way ku dhamaatay sanadka 4 sano ugu dambeysay dugsiga qaybta sare marka foowankiisii baan ka wada foowankiisii way ku dhamaatay fantoogi isla soo gudbeen laakiin sidii hore ma ahan asaga iyo Saabiriin waa saaxiibo ardayda kale waxa ka dhaxaysa wax ka dhaxeeya ardayda kale way la hadashaa oo la hadlaa waxba ka qaataa waxba ka qaadataa sidoo kale waa caadi is dhex galeen waa friends banaay walaalanahay laakiin wuxuu yiraahdaa waxaan rabaa inaan saaxiibtinimadan iyo waxaan oo dhan baa ka dhaco oo aan qoftaan ku iraahdo maxaa qaldan waxaan naga dhex jira aniga maxaa weey laakiin wuxuu yiraahday maxaan sameeyaa waxa kama sameyn karo iskuulka foowankii saasa ku dhameystay fontoogi waa iblowday fontoogi marka isku iimaanay anagoo saaxiibo ah laakiin fiirinteeni aydan sida i fiirinayso anigana sidii aan rabo inaan u fiiriyo si kasi wanaagsan ibadii waxaan ku iraahday hiblaayo inaan la rabo sidoo kale waxaan u dhahay okay way hay anaga kula soo hadlayna marka wuxuu yiraahday may baan ku iraahdaa waa inaan aniga la hadlaa kadib horta wuxuu yiraahday aniga kaliya waa isla hadlay waxaan ku iraahday maxaa weey sidaan maxay tahay why waxaan yiraahday waxaan bilaabay xitaa iskuulkii inaan subax kasta soo kici waayo cunadii waa iska ka yaraatay nolosheedii dhan way isbedeshay fiirin kaliya ma aha uu yiraahday fasalka labaad wuxuu ii bilowday anigoo ay nolosheedii saad isku bedeshay wuxuu yiraahday xitaa gabadhan waxaan rabaa inay aan fiiriyo 24 saac aniga agteeda ahaato laakiin ma isu tagaysa lama hadli karo marka wuxuu yiraahday xaaladii way isbedeshay waa xanuunsaday meel daran baa la iga qabtay hooyaday iyo bahay way qaadeen buu yiraahday dhakhtar bay igeen skor waxaas iga baareen way iga soo waayeen aniga wuxuu yiraahday gabadhi ma ahana wax kale iga macda man rabo inaan wax kale sameeyo wuxuu yiraahday intaas oo dhan wax ay hayeen ma fahansaneen kadib wuxuu yiraahday waan fadhiistay waxa ogaaday inaan Saabiriin jecelahay oo aan rabo Saabiriin aan rabo qofteeda inay noqoto marka wuxuu yiraahday wax kale ma sameynin go'aan waxa ku qaatay inaan la hadlo haddana markaan siraha la hadal wuxuu yiraahday gabar telefoon ma haysato sidoo kale ma ahan qof la helo meelaha laga helo sidoo kale gabar gurigeeda joogto weey laakiin go'aan waxa ku gaaray inaan la hadlo oon iraahdo Saabiriin waan ku jecelahay laakiin wuxuu yiraahday ima suurto galin Salmaan wuxuu joogaba iska xanuunsanaado madax laga hayaba oo wuxuu sameeyay garan waayay wuxuu yiraahday dhalinyarada uga dhex baxo
kubadii wixii ciyaarsan jiray iska dhaafo, waxbarashadii iga soo yaraato, iskuulkii inaan wax qora aan rabin, buugaagtayda oo dhan wuxuu yidhahdeen magaceeda mar ayadoo fadhidaan ku sawirayaa, mar ayadoo yellow ah waa ku sawirayaa, mar ayadoo nooc kale ah waa ku sawirayaa, geeraaraan qorayaa 24 saac. wuxuu yidhaahday waxaan sameynayaa buugaag baa soo gadanayaa, sheekooyin baa iska akhrisanayaa, ayadaa ka sheekaysanayaa, banaanka fadhiisanayaa, wax aan ayada ahayn maskaxdayda kuma jirto, wax kasta qurux badan aan ku fikirana ayada igula jirto yiraahdo. wuxuu yiraahdaa waa seexanayaa, waxaan ku riyoonayaa anigoo la hadlaya, waa soo kacayaa, waxaan rabaa inaan la hadlo. noloshaydu dhan way isbedeshay ilaa familigayga ay kaxeeyaan dhakhtar i geeyaan oo adiga cunadii wixii dhan intaa ka go-ay ay iga soo baaraan sokor iyo waxaas inay hayso. laakiin wuxuu yiraahdaa alxamdulillah waa caafimaad qabay, laakiin xaaladdeeda si kale u qasneed. marka wuxuu yiraahday go-aan waxaa ku gaaray inaan hadlo oo iraahdo hadal Sabrina la hadal, hadhimanin nafta ilaahay baa gooya. wuxuu sameeyey, wuxuu yiraahday waxaa go-aan ku gaaray inaan Sabriin u tago oon iraado Sabriin waan ku jecelahay. wuxuu yiraahday sababtoo ah waxaan kasoo bilownay dugsiga qaybtii 3aad oo fiirin kusoo bilaabay gabadha. haddeertaan waxaa la marayaa oo mar dhow loo gudbi rabaa dugsiga sare qaybtiisa 3aad. waa waqti aad u badan. marka wuxuu yiraahday go-aan waxaa ku gaaray inaan iraado Sabriin waan ku rabaa jecelahay, laakiin wuxuu yiraahday waa awood waaye. kadib waxaan sameeyey saaxiibaday baa la tashtay, kadib waxay ugu dhaheen anagaan kula hadlayna. haddana wuxuu yiri mar in ay ila hadlaan afkooda ay ka maqasho. kadib wuxuu yiraahday waxaa dhacday subax iskuulka anoo kasoo baxay baa waxaan arkay Sabriin oo gabdha isdagaaleen. markay Sabriin arkay gabdha isdagaaleen waxaan ku yiraahday maxaa dagaalkay waxaas igu galiyeyna. wuxuu yiraahday waxay ugu dhaheen adiga iyo Salmaan baa isjecel. wuxuu yiraahday aniga marka waa yaabayba alxamdulillah waa tagnaa. marka laakiin wuxuu yiraahday waa yaabay, waxaan ku yiraahday beentood way intaan nacay oo wadnaha galgariiray. wuxuu yiraahday aniga dhan waxa ay sheegtay waxaan moodaan ay u tiri tug yahow maxaa saas u tiraahday aniga igu tiraahday. laakiin wuxuu yiraahday aniga dhan inta isbedelay waxaan ku yiraahday beentood way waxaas waa ayaga waxay alifteen mooye. waxaan ku yiraahday iska dhaaf waxaas qashin mooye. kale wuxuu yiraahday waxaan inta ku akhriyay baan soo dhaqaaqay buu yiri. laakiin markaas kadib baaba dadka kale sii fiiriyay oo banaanka ardayda inaan aniga waxay iga aaminsan yihiin inaan tixraaco bilaabay. marka wuxuu yiraahday waxaan moodaa inay fahmeen. kadib wuxuu yiri waxa arkayba iskuulka oo dhan iyo fasalkeena oo dhan oo laga ogyahay gabadhaan iyo aniga inaan isfiirino, aniga gabadhaan dad kale inaan iskaga duwanahay. sida aan aniga u sheekaysto oo aan saaxiibaday 2 qof hadda u sheegay ayagana dadka dhan u sii sheegayaan buu yiraahday. marka sidoo kale iskuulka oo dhan wuxuu yiraahday waxa ogaaday in laga ogyahay gabadhaan inaan fiiriyo ayadana ay fiiriso, sidoo kale anigana aan jeclahay. waxayba u qabaanba inuu aniga ayada xiriirkan caadi noogu socdo oo qofba qof kale ogyahay inuu jecel yahay. marka wuxuu yiraahday taas waxay igu dhalisay kamana cabsan kamana xumaan, laakiin waxay igu dhalisay buu yiraahday arintayda marka inaan run u bedelo. marka wuxuu yiraahday go-aan waxaa ku gaaray inaan ku iraado Sabriin waan ku jeclahay. wuxuu yiraahday subaxii dambe waa soo baxay, waxaan ku iraahday ardayda 2 qof saaxiibada ilaahay wiil iyo gabar bay ahaayeen. waxaan rabaa inaan sameeyo Sabriin inaan ku iraado waan ku jeclahay si u sheegtaa. marka wuxuu yiraahday tala isiiyeen gabadhii waxaan ku iraahday waxay u tiraahday okay ana kugu caawin kara maxaan ku sameeyaa. marka wuxuu yiraahday maadaama ay Sabriin ay telefoon haysanin, Salmaan wuxuu sameeyay wuxuu yiraahday waxa ku dhacdaa Sabriin. Salmaan wuxuu ku yiraahday waan ku jeclahay, waxaan rabaa inaan soo wacdi telefonkaygana waa kaasa ayada telefoon haysan. gabadh waxay tiraahday okay maadaama ay waqti badan ayada laftirkeeda aan ku dhahayay buu yiraahday Sabriin baa jeclahay. marka wuxuu sameeyey Salmaan intii uu sheegay. gabadh way soo baxday, Sabriin saaxiibteed bay ahayd. Sabriin bay u timid, waxay ku tiraahday intii u sheegtay. markay ku tiraahday Sabriin maanta waxaan rabaa inaan arrin kuu sheego, arrinkaaga socota Salmaan. waxay tiraahday waxaa moodaa Sabriin inay sugayso oo kale. waxay tiraahday hee. kadib waxay tiraahday Sabriin Salmaan wuxuu kusoo yiraahday waan ku jeclahay, telefonkaana iga soo wac inaan kula hadlaan rabaa. okay bay tiraahday hadduu rabo inaan waco shuruudahayga waa inuu ka jawaabaa oo shuruudo badan baa wataa bay tiraahday Sabriin. marka wax kale ma sameynin, shuruudahayga u sheeg anna waa soo wacaya. hadduu shuruudahayga diyaar u yahay waan soo wacayaa bay tiraahday, wixiisina waa aqbalaya.
gabadhii oo soo baxday Salmaan bay wacday waxayna ku tiraahday okay Sabriin saasay ku tiri wuxuu yiraahday aniga markaas diyaar waxa uu ahaa wax kasta oo shuruud ah oo ayada aan ku helay okay bira diyaar baa u ahay maadaama adiga aan ku helay maxay iga gala shuruud kulli soo sidaa okay galbaha kamid ah waxaa dhacday Salmaan oo isku labsanaya oo suuq isku soo diyaariyay lambar baa soo wacay mise waaba Sabriin way soo wacday Salmaan ugu dambeyn kadibna waxaa dhacday Salmaan markuu ka qabtay yiraahdo halo codkeedii uga gartay kadib Sabriin waxay tiraahday hey waaniga wuu farxay hey Sabriin see tahay waa la salaamay fiican tahay aad u fiicnahay see tahay adiga oo fiicnahay hey joogaaga alxamdulillah hey arinteedii ku soo gaartay amal arintaadu soo gaartay maxaa ka leedahay okay markaas Sabriin waxay tiraahday aniga sidoo kale waan ku jeclahay aniga intaas dhan baan ku fiirinay aniga waa la yaabanaa wixii inta uu soo maray oo dhan bay ayadana soo martay oo sheegtay waxay ku tiraahday aniga waxaan oo dhan waa la yaabanaa ugu dambeynna waan ku faraxsanahay inaan ku soo waco inaan kula hadlo inaan magacaaga kuugu yeero adiga weliba aniga ila hadlay Salmaan wuu farxay meel tuu garan waayay wuxuu yiraahday galabkaas waxay ahayd galabkii noloshayda ugu farxada badnay galabkii noloshayda qaasi ahayd si ahaataba Sabriin sidoo kale waxay tiraahday Salmaan aniga intaas oo kale soo maray oo ku fiirin jiray xil kasta waxaan rabaa inaan kula hadlo madaxa xanuun jiray makaabaq jiray marin inay fiirisid ardada kale marka ku dhex jirto kaliya ku fiirin jiray marka adiga ila hadashidna halka dadka loo gudbanaa wixii dhan oo sheegtay kadib si ahaataba Salmaan wuxuu yiraahday okay hadda waxa diyaar u tahay in qofteeda noqotay okay bitra ida ha diyaar waxa uu ahay ku soo wacay in adiga qoftaada noqotay adiga diyaar u tahay bas meeshii baa lagu heshiiyey meeshii baa lagu saaxiibay arrintii saaxiibtinimadii iyo walaaltinimadii wixii soo socotay meeshii baa lagu bedelay xiriirkoodiina meeshaas oo ka bilowday kadib waxaa bilaabatay Sabriin Salmaan inay midoobaan midba mid kale wuxuu qalbigu u sheegay midba mid kale go'aamihiisa u sheegay labadoodiina waxa ay ku bilaabatay arrintoodii jacaylka ahayd telefoonkaas wixii ka dambeeyayna arrintoodii waxay noqotay arrin xiriir ah fiirin dambana ma jirto haddii la isfiirinayo waxaa la isfiirinaya iyadoo la is ogyahay naxdintii wixii wuxuu yiraahday marka subxaan wa tacaala in laga dulqaaday bas laakiin wuxuu yiraahday isbuucaas iskuul ma aadin ayuu yiri Salmaan maadaama wuxuu yiraahday aan boor iska tuuray isbuucaas iskuul ma aadin guriga fadhiyay waxaa halkaas noogu dhamaaday qisada qaybteeda koowaad qisadeeni Salmaan iyo Sabriin si ahaataba nala soo xiriir adigna qisooyinkan la wadaag waa WhatsApp numberkan waa Somali Royal Family waa aniga Anas aquuda kulana qisada qaybteeda labaad haddii Ilaahay idmo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh It's a little sting when I'm talking. Somehow my doubts seem locked in. So true that all too often we forget ourselves.